waxaa deeq lacageed la gaarsiiyey dadkii dhowaan dadkooda waxyeelada ay ka soo gaareen isgooskii Soobe qaraxii ka dhacay 14 Oktoobar waxaana lacagahaasi gaarsiiyey xisbiga Samad Dimuqraadi waxayna u soo wakiisheen dhalinyaro ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya si ay u gaarsiiyaan lacagahaasi waa kuwan dadkii la gaarsiiyey lacagahaasi ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sabarkeena la hawada si kulligeena naga wada dhimato waa wada dhalnaan kaligeed madaliyadkan waa dhasheen waan niil dhalay qolo hore oo Soomaaliya lama malyan oo shilkun oo Soomaaliya iyo $25 oo hadda waa soo gaartay qaar Allah miisiyo Ilhaan Cabdi Cali waxaan ku wareejiyay $25 ee iisoo noo soo idmadeen xisbiga Samad Dimuqraadi ayadana waata insha Allah taala agoonteeda Allah la koriyo خير على نفسي ولا على جل أنا نجيبه. ما هو قاري. الله تشم دور لعنتي إذا جت وانستا. يلا بقول. يلا بقول هون رئيسي وكاشيا. هيك. خير على نفسي. لعت أوكي نسوي وان أركي. هذا لواتي شنطة. لواتي شنطة وان أركي هذا الحديث. شلي لا بقول. لواتي شنطة. ما شاء الله. حجر الحسنات الله نيسيو المها أبورنا الشيخ نور حسن حجر الحسنات الله يسيو رئيسي انت تعرفها ما شاء الله درت ويسو غارتي عندنا وهاي $25 dhaawacaygan intaan leeyahay lacag yarana soo gaartay $25 waxa ku soo gaarsiiyay xisbiga Samad Dimuqraadi $5 waa helay ما شاء الله 200 ka horeysana waa la ii keenay عرفتها منو؟ ما شاء الله. حسبي Samad Dimuqraadi وما سنتين $25 أنا سو قاتي يا أخي $200 كل عليك وأنا مسنتين. labadii boqol oo koreys waa helay $25 hadaan waa helay walaalahey gidis mala alla ay lacagtii isu dhiibteen $25 way soo gaartay خيرنا الله ينسي 200 ku horeysana waa la ii keenay maalin Soomaaliya هاي ما شاء الله. إن شاء الله إليه العقد ولا له جرير وين Samad Dimuqraadi Samad Dimuqraadi waa isoo gaartay waatan $25 200 horena waa isoo gaartay meel igu soo baxday hilibaan ku gatay hadana tan daaway dhineedan ku dhameystirana ilaahay idinkana qeer Allah idinku ra'iisul wasaaraha xisbiga Samad Dimuqraadi Mama Isha Gosaar ayaa waxa ay u mahadcelisay dhammaantii u howlgashay in ay ka shaqeyso deeqdan lacageed in la gaarsiiyo dadkii dhawaan dadkooda ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay isgooskii Soobe Mama Isha Gosaar ra'iisul wasaaraha xisbiga Samad Dimuqraadi ayaa waxa ay sheegtay in ay ku faraxsan tahay in la gaarsiiyo dadka ay dadkooda waxyeelada ay ka soo gaareen isgooskii Soobe waxa ayna sheegtay in ay hor u sii wadi doonaan howlgalka ay ku jiraan ayna sii xoojin doonaan mar walbana walaalahood ay garab taagnaan doonaan waatan Mama Isha Gosaar ra'iisul wasaaraha xisbiga Samad Dimuqraadi oo ka hadlaysa arimahaasi عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامة walaalahayga xisbiga Samad Dimuqraadi gabar iyo geesi culimo awdiin aqoonyahan indheer garad madaxda sharafta leh intii meeshan ku midaysan xisbigayna qaaliga ah Samad Dimuqraadi anigoo ah walaashiina Mama Isha Gosaar ra'iisul wasaarada xisbiga Samad Dimuqraadi waxaan salaan u diraa all dhamaantiina salaan qaas waxaan u dirayaa xisbiga Samad Dimuqraadi madaxdooda waxaan meesha rabaa inaan hambaliyo ugu diro iyo duco qaas u ah dhalinyaradii abaabushay odayaashii abaabuleen facal khayrkan in laga taliyo koow waxaa amaanta iskale Ilaahay oo noo suurta geliyay in arimahan Ilaahay nagu ceebeynin oo aan Ilaahayna wax noo soo dhiibay aan dhiibno ha yaraata ha badnaato wixii awood ahayd waa dhiibnay marka waxaan awaal uga haynaa walaalahayna qaaliga ah oo Soomaaliya xaalkeeda ognahay khatarkeeda badan yahay kuleylna jiro ayagoo qoys leh family leh shaqo leh oo noo holdeeyeen guri u galeen inay walaalahooda deeq u geeyaan Ilaahay ayagana ha u barakeeyo dadkan qaaday
khayraadkaasna ilaahay warta janwaadiga raxmo dhammaanteena allah nagu kulmay khayr badan allah siiyo miisaankooda qiyaamo allah ugu kabo dadkan sadaqada dhiibay oo walaalahayna ahna meesha ka soo bixiyeen wax badan oo baraka leh allah u geliyo caafimaad cimri dheer iyo cibaado suuban allahna wada siiyo walaalahayga qaaliga ah salaan qaasi waxaan u dirayaa madaxweynaheena Ibrahim Baardheere gudoomiye baarlamaankeena walaalkay Cabdimaalik Xasan Taksi idin salaamaya maayaashii ayaanta dhan shaqeynay oo maskaxdooda dabka noo saaray dhamaantiina walaalayaal waa mahadsantihiin jisadiina janno koobkiina koob janaad allah ka dhigo insha Allah barakallahu fiikum noolaada wiligiina xisbigiinana labada gacan ku haya is amin iyo reereen insha Allah aan isku ognahay ilaahay waxaan yani dhibaatada Allah naga haayo wax markala buuqi ilaahayna ma soo geliyo haday dhacdana kuwi isgarab galay Allah naga dhigo gacanta is haystay adduunyo aakhiro insha Allah salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ma ahan markii ugu horeysay xisbiga Samad Dimuqraadi uu deeq lacageed gaarsiiyo dad ku dhibaataysan ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Alfa warbaahinta Jubba Shabeelle News magaalada Jowhar